nabad daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij aan ugu magac daray xasidka iyo xaalkiisa. haddaba barnaamijkan waa barnaamij diini ah waxaana marti inoogu ah Sheekh Maxamed Sheekh Cali Ibrahim. Sheekh marka hore ku soo dhawo barnaamijka. waan dhawahay khayr Allah ku siiyo mahadsan. haddii aan u gudo galo su'aasha ugu horeysa aan ku weydiiyay barnaamijka qofka xaasidka ah maxay diintu ka qabtaa horta? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد شيء اللي يراهدو دينتو waxay ka qabtaa inuu yahay qof xun inuu yahay qof isagu dhibaataysan una baahan inuu ilaahay uga toobad keeno waana dunuubta waaweyn dambi kamida inuu qofku xaasid noqdo. wax lagu dhashamiya laba qaybood baa loo kala qaadaa. qayb waxa weeyaan cuqdad qofka ku dhalata oo xiqdi ayaa asalkeeda la yiraahdaa. qaybna waa qayb jahligu uu keeno. qayb cuqdad baa ku keenta qofka qaybna jaahilnima keenta. qaybta cuqdadu ay keento xiqdiga marka waa wax aad u dhibaato badan laakiin taasaa la dhihi kara uu ku dhasho qofku oo daawo ma lahan in ilaahay uu baryo mooyaane. laakiin qaybta jahligu keeno way dhammaan kartaa qofku hadduu cilmi intuu yeesho horumar ka sameeyo. ma xanuun baa marka waxaan waa xanuun liannaha waxa weeyaan nicmada ilaahay qofka siiyey ayuu qofku ka xumaanayaa. qofkan waxaa ku dhacaya cuqdad la yiraahdo qofkan waxa uu haysto maxaa keenay. hadda aayadda qur-aanka ee suuratul falaq ku jirto kale nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa ilaahay nubuwa siiyey oo wuxuu rabbi ka dhigay subxaanahu wa tacaala rasuulkii ugu dambeeyey ambiyada ilaahay. qoladii marka nacaybka u qabtay xumaanta u qabtay ayaa sixir samaysay si nabiga diinta kuma banaana waana wax akhlaaq xumo waana gaalnimo. sixirku gaalnimo weeye qofku inuu qof saaxira noqdo waa qofku iimaankii baa ka tagaya shirkiba ma ahan qofku iimaankii baa ka tagaya. marka waxay sameeyeen way sixreen nabiga calayhi salaatu wassalaam. sixirkii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uga soo dejiyey. marka waxaad dareemaysaa cadaawad inay asal ku hayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay ومن شر حاسد إلهي بان وحن كما ينقليا أعوذ من شر حاسد حاسد كشرت سن إلهي كما ينقليا إذا وقت حسد وحسد يفعل كحسد كأمركو كوكذا جرو بان إلهي كما ينقليا. واحد عضي قصة عجيبة وحسد كاسكو سابسن ننبا واحد ليروحو أها نن وحول كان حقوق إلهي سيو نعمة والبو إلهي سيو. ما أنت عبد الرزاق بالقاس هدي إلهي ويل سيو هدي إلهي محمد شعالي مال سيو هدي إلهي قبر ننفي عن سيو هدي نن قبر وناكسن إلهي سيو هدي نن قرفي عن الله سيو وكان حياة مركا نن شيخ ويمحور شيخ وحان ربائنا القرآن سارتد إلهي إبردد هيا بعذرك كوهاي الشيخ كان قرآن ساراي شيخ وحير قف والبو إلهي نمعسيو وان كان حياة. بسم الله. وحير مركز الشيخ وحن كان قرآن سراكما يعني إلهينا وحبحين دين ميو أدنى نحد دين ميسده أرض إلهي أنت توبت كنتي إلهي أنقو أو حاسد ماذا قلبك على كسر مركا حسدقو وان مدك مركا عقدة وحكو إيمانا إن قف كان وكحما نعمة إلهي بحي مدك جهلك مركا wuxuu qofkani isleeyahay qofkan waxaan wuxuu ku helay cilmigiisu ku helay wuu ka fiican yahay waa jahli. qofkii markuu wax barto buu wuxuu ogaanayaa kala duwanaanshaha dadka. qaala alladii yani qaaruun qoladii reer banu israa'iil waxay yiraahdeen markuu inamaa utiitu calaa cilmin cindii uu yiri qoladii cilmiga lahaana waxay yiraahdeen ilaahay u noqo ilaahay u toobadkeen oo waxaad ugu shukridaa nicmada ilaahay. qoladii jaahiliinta ay noo xiran wuxuu helay oo kale ma nala siiyo. marka jahligana waa uu keenayaa xasidku marka waa labadaas nooc ay u kala baxaa waana wax aad u foolxun.
hebel wuxuu haysto maal la isiiyo ma ii furan tahay horta diin ahaan laba nooc keliya furan ma jarasha la yiraahdaa laba nooc baa furan caalim waarica oo cilmigiisa ummadda ku deeqaya oo cilmi bixinaya ilaahu cilmigaasoo kale si aan ummadda ugu anfaco ilaahu cilmiga hebel aad siiso kale si aan ummadda ugu anfaco qof maal rabbi siiye oo taajira oo bixinaya maalkii dariiq xaq ah oo wanaagsanna ku bixinaya ilaahu hebel maalkaad siisoo kale si aan anna sidiisoo kale adiga kugu soo dhawaado labaduba waa laba ilaahay loogu dhawaanayo wax allaala wixii ka soo haray lama ogola sidaada guud ilaahay u bari laakiin qof ha ku xidhino ha dhihin ilaahu waxaad qofkaas siisoo kale lama ogola oo xaasidnimay noqonaysaa dariiqa xaasid bay soo galaysaa